الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله. موضوعنا أما خطبتنا ما أنت وحي لحديدا موضوع laga yaabo qofku markuu dib isugu noqdo inuu aad u dareemo oo الاستشعار بلذة العبادة وذوقها. عبادة إنه كل حجرنا إلى رمضان بينه كجرنا وحين ودنا وعبادة. أنت عبادة السنة يسيل هاي وافجية. عبادة اسم الله هاي. ردان إيا معان إيا درين. لو تقياس كريس مركز الشيبان هذا ضو ساكت. وحين أقصون هاي شركة باهيسة. مركو عافمات قبض درين بو قبعة. hurdada waad jeceshaho waad u xiisoonaysaa. cunadana markay macaanta si wanaagsan loo diyaariyay waad u soo haliilaysaa, waad u soo hamuumaysaa. waa kan qofku soo dhareeriya. waxyaabaha kale baahayaa naftuna waa saas oo kale. waxaynu isweydiinaynaa cibaadadu dhadhan noocaasa ma inoo leedahay mise bahasha nafa waynu qasbaynaa waxba dhadhan ma laha cibaadadu. qadiyadaas maxaa sababa inay cibaadadu dhadhami weydo, inayse ku dhadhanto maxaa sababi kara, maxaase laga faa'iidaa? kelmadeenu inahaase ku wareegaysa. ladatu lcibaada, cibaadada macaankeeda inuu qofku dareemo oo uu jeclaysto oo laga fujin waayo, oo lagu dhaha masaajidka ka soo baxo sii fadhido iyo khayrka marka la wado. waa nolosha sacaadada leh wanaagsan bay leeyihin culimadii dhadhamiyey. waxay u soo daliishadaan aayadda ilaahay uhi man camila صaalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba. qofka ilaahay rumeeyey ee camal fiican sameeyey nolol macaan baa dhadhansiin doonaa baa ilaahay uhi. noloshaa macaani ma aha duunyada iyo dadka iyo waxa faraha badana la ururiya ma aha. qofka aan sacaadadan iyo macaankan iimaanka haynin taa wuu ku waashaa, wuu ku wareera, waynu aragnay. laakiin waxay leeyihiin waa macaanka cibaadada uu qofku ku hayay abateedkuu leeyahy. hunaaka asbaab lixusuuli hadihi ladda, waxyaabaha keeno sabab u noqon kara oo inoo muhiima inaynu garanno cibaadadaas waxyaabaha inoo macaanaynaya. maxaa sababa? cunada waxaa la yidhaha qofkan abateedkii baa ka xidhmaysaa daraaddeedna waa la siinaya ama faytamina abateedka u fura. shahiya, yaftax lahu shahiya, abateedka u fura. maxaa abateedka inoo furi kara cibaadada? waxay noo furi karaa arrimahan soo socda. kow, mujaahadatu nafs, nafta in la muquuniyo oonay adiga ku muquunin oo naftaada aada meel ku tiiriso. soomaalida waxay dhaha ninka calooshiisa u talin waayo dadna uma taliyo. calooshu wuxunay ka mid tahay baahiyaha nafta. ilaahay baa wuxu uhi waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin. dadka naftooda la dagaalamay buu ilaahay dagaal galay xoreeyey, aniguna tubta fiican baan ku hanuuninayaa. cibaadada macaankeedu ka mid yahay. waxa uu lahaa abu yasiid imaamka la odhan jiray, naftaydii ilaahay xaggiisa ayaan u kaxeeyey wahiya tabki, iyada oo ooyeysa sida ciyaalka oo kale. famaa ziltu asuuquhaa xataa istansaaqat wahiya tadxak, ilaa ay ogolaatay oo aan qosolka ogolaysiiyey buu leeyahy. oo dadkii isqiyaasayay. waxaa ka mid ah alaktaaru min annawaafil, inaynu sunnayaasha badinno, faralkoo qura aynaan ku ururin. faralka keligii iyaynaan ilaalin. faralku waa kow, laakiin sunnayaashaynu ku dadaalayna. rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid alqudsi buu inoo soo wariyey. ilaahay baa inala hadlaya, wuxuu leeyahy wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah. addoonkaygu hadduu ku dadaalo inuu sunnayaasha igu soo dhawaado anaa jeclaanaya, markaasaan xubnihiisao dhan ilaalinaya. alta'amulu fii siyari الصaalixiin waxaa ka mid a waxyaabaha cibaadada dareenka inoo siin karaa. dadkii sida fiican usoo tijaabiyey iyaguba dareenkaa lahaa inaynu siiradooda iyo taariikhdooda eegno, iyagana la kulanno cidda joogta. jacfar ibnu sulaymaan baa wuxuu uhi kuntu idaa wajadtu min nafsi qaswa qadowtu fanadartu ilaa wajhi moxamed ibnu waasic. markaa naftayda xoogaa yara qalafsanaana ka dareemo ninkii caabidka ahaa moxamed ibnu waasic la odhan jiray zayn lquraa ayaan u tegi jirayoo markaasaan wejigiisa eegi jiray kaannahu wajhu thukla,
waxaad moodaysa wejigiisa ruux dumar ah oo goblantay wejigeeda islaan goblantay macnaha dee waxba isma duugto cream iyo waxba ma marsatee wejigeedu wuu isbedelaa saasoo isagana siduu cibaadaysanaya u sujuudsanaa u ilmeynaya wejigiisu isu bedelay cabdullaahi mubaarak wuxuu odhan jiray marka aan naftayda garan waayo waxaan eegi jiray ilaa fudayl ibnu cayaad markaasaa juddida liya alxusn naftaydu markaasay dabeedna dareen uu geli jiray oo aan qiiro heli jiray macnaha waa dadii markaad iyaga la kulantay ilaahay uu ku xusuusinaya araggaad iyaga arkaysa waxaa afraad oo ka mid a waxyaabaha qalbigeenna qoynaya cibaadadan inoo macaanaynay qiraa'atu lqur'aan ilaahay hadalkiisa inaynu akhrino hadalka rabbi subxaanahu wa tacaala inaynu habeen iyo maalinba akhrino intaad taqaano iyo inaad kororsataba allahu nazla axsana alxadiid kitaaba mutashaabiha mathani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أحسن الحديث وركي وناك بدناب إلهي سودة شيء قرآن كا مركزاتك أخرية شركوذ شريرعية نقنقات سمينية مركز سوى مران آياتها عقابك يا عذابك يا هلاك ويعبسنا يا آياتها بشارة دي جنة دي نحريس مركز سوى مران ويفرح يا وحاصرنا وحي شيء إنه قفك قرآن كدران السمينية وحشناده كم إذا الخلوة بالله والأنس به إن هذا الله وهشته وعشرين قديما أدينا نديس يليلين لا يسمى قنعيه لكن الرماه هو الرماه إنه قمقن أما إنه غير وحيابها كان لذة العبادة وحكم إذا إن إلهي وهشته الكمال استاجي إلهي وهشني يواكي أما إسلاتي سكو عرّي أما عيال كيسامي ريركو أما صاحب بدي مالك بن مغفل باوحو لها mar uu dee iska wardii jiro gurigiisunu fadhiij ayaa qolo weydiisay waxay ku dhahay alaa tastawxish keligaa baad fadhidaaye halkan aad keligaa fadhida miyaanad ku cidlaysanayn markaasaa wuxuu ihi awa yastawxishu maca allaahi axad oo isagoo ilaahay weheshanaya ma qof baa cidloonaya mar hadduu qofku ilaahay weheshanayo la hadlayo oo baryayo oo wardiyayo oo xusayo xusuusan yahayna dee qofkaasi ma cidlooda buy وفرق وين بين نورحي حبيب نيكل جري أبو محمد كان يقول وهو يخلو في بيتي من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه ومن لم ينس بك فلا أنس إلهي وقف كان إشي سؤاليك كو قبو سنين يانو قبو بهلين كأنا ديك كو هشن عدكلو هشدبا يهلين وحكم ذو الحياة البعد عن الذنوب inuu qofku ka durko dambiyada inala sahlan in daldala inay faraha badan inuu qofku iska yareeyo ya macsiyada ibn aad waxa uu lahaa imaamkaasi fakama la yajidu aljasad ladhata ta'ami 'inda saqami fakadhalika alqalbu la yajidu halawata alibada ma'a dhunub sala wanaagsan buu nasiyo keen hore soo qaadanay imaamkaasi wuxuu leeyahay qofku marka uu xanuunsanayo sida aanu jirkiisu raashinka macaankiisa u dareenin saasoo kale marka ay ruuxdiisu bugto ama qalbigiisuna macaanka cibaadada ma dareemo waxa kamid ah at-taqallul min al-mubahat aw at-taqlil min al-mubahat inuu qofku iska yareeyo waxyaabaha mubaaxaba ah ilaahay u xalaaleeyay oo aan oranin ka dharag habeenkii baa rabadaanta lagu fasaxay aad u badso balkaashada maalintii si aad tamarun uga yeelato wad'un oo hudada iyo ahmada iyo guriga iyo hawlaha naftu rabta inaanu aad u badsanin ilaa waa ka nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidkii saxiixa qofka bani aadamkii waxa uu buuxiyo caloosha weelka uu buuxiyo calooshu ma u daran marka waxa mubaaxa ilaahay ku xalaaleeyay oo la iska yareeyo ahmed ibn harb imaamkaas waa imadii siyar wa aclaam an-nubala in badan dahabi taariikhdooda kaga warrama kitaabkiisa weyna marjaca وحاول عبدت الله 50 سنة فما وجدت حلاوة الإيمان حتى تركت 3 إلهي كنت سنان عابدا يو معانك إيمانك عبادة مان هلين معانك عبادة مان هلين إلى أن صدح تجي ونسكداي تركت رضا الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق تذكر هالي قولين تودا نسكداي مركزا وحن أودا إن الحق كوهد ذكره إلا رضا الناس غاية لا تدرك بني آدم كرهالي قولين تسلم قارو marka dad istiraadadka raali gali oo iska muslax oo ishooda iska jeedi oo ay ku eedaynin ilaahay baad seegaysaa subhanahu wa ta'ala marka inaan ilaahay raali galiyo baan ku ururayo
dadka raaligelintoodii baan iska daayay buu sidaa daraaddeed baa aan karay buuna oo aan helay macaanka cibaadada markaan ilaahay u raaligeliy xaqina waan ku hadlay wa taraktu suxbata alfaasiqiina xataa wajadtu suxbata asaalixiin dadka liita saaxiibtinimadooda waan iska daayay marka waxaa ii sahlanaatay dadka wanaagsan inaan la saaxiibo ilaa laba ula qof xun iyo qof wanaagsan labada lama wada saaxiibi karta markaad ka xun iska daysaabaad ka wanaagsan raaci karaysa wataraktu xalaawata dunya xataa wajadtu xalaawata alukhra aakhira iyo xusuusteedii iyo diyaargarowgeeduna wuxuu ii sahlanaaday daba orodka iyo uwaalaanshaha adduunyaha markaan iska eraya adduunyada waxyaabaha inoo sahli kara inaynu cibaadada dhadhamino sirteeda waxaa ka mid ah inaynu caadaysano cibaado la yidhaahdo alcibaadatu assaamita cibaadada aamusan cibaadada aamusanna waa atafakur cibaadada qur-aanku aad uu inoo farayo ka shaqaysiinta baatinka iyo ka shaqaysiinta qalbiga inaad inta badan dee intood meel fadhiisataad fikirtaa adduunyada mashaariicdeeda siyaasadeeda axwaasheeda qofku intuu meel fadhiisto waxaa ka fikiraa waxay u baahan yihiin makhluuqaadkan ilaahay u abuurayna inaynu saasoo kale ugu fadhiisano inuu ka fikirno fikirkaa laftiisaa cibaado ah waana aayadaha qur-aanku mawduucay aada uga hadlaan ay u badan yihiin waxa uu lahaa xasanu basri raximah llahu tafakuru saacatin khayru min qiyaami leyla inuu qofku saacad cibaadadaas fikirka la ydhaa la yimaadaa qiyaamu leyla habeen inuu cibaadaysto way ka fiicanta mar kalena waxa uhi alfikratu mir-aatun turiika xasanaatika wa sayi-aatik waa muraayadku tusi karaysa xumaan iyo samaa waxaad leedahay alfikratu nuurun yadkhulu qalbak haddii fikirkaabaad hesha buu leeyahy sufyaan ibnu cuyayna waa nuur qalbigaaga galay markuu qofku nuuraya qalbigiisu ayuunbuu fikirkaa la yimaadaa fadliga cibaadadan iyadee tafakurka ah iyo ajriga weynay leedahay axaadiid aayado badan axaadiid badan aahaar culimadu ay leeyihin bay kusoo arooreen waana cibaadooyinka inoo dhimana aynu isku baraarujinayno ilaahay baa qur-aanka subxaana wa tacaala aada uga warramay meelo badana waxa uu leeyahy wayatafakaruuna fii khalqi asamaawaati waalard markaasay sidaa u ducaysanayaan cerkiiyo dhulkiiyo caalamka eegaya markaasay sidaa u ducaysanaya ilahay uu sheegay subxaana wa tacaala majaalaatu tafkiiri fi lumuuri taaliya meelaha laga fikiraya haddaynu isweydiino si qalbigeennu u noolaado u baraarugo si dareenkaa iyo dhadhankaa cibaadada aynu helo si casharkaa inaga maqan aynu u baranno meelahana laga fikiraya ilaa 6 meelood في آيات الله الكونية آياتها إلهي قالوا أي لادان هي ملحدين طبيعة عدا أبورتي طبيعة عدا عرك أبورتي رولك أبورتي قرح أو صباد أو روبك وطبيعة عدا طبيعة عدا نعسيا شافحمي هلك إلهي أبوريك أوران لها ينبي لادان طبيعة عدا مركا قرآنك آت بو إنه قبرا روتينا ينينا سكفر فردينوني أي نكونك إيه آياتها إلهي كفكرنا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والضيحة يقرحها يحدقها بروج تواوين إله أبوري وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو إلهي وإله ذينك إيما لنت أيو أبوري خلفة وحي سب الدليا ينقفك الدون إنه كفى إليستو فرصة هذينك مركز لافتو تمالنتي بو كفايدة سنة تمالنتي مركز لافتو تهابينكي بو كفايدة سنة خلفة دوا إله سايد يكون نعمي وعنو كفكرين الآيات الشرعية آيات القرآن كاينو هاينا كتاب القرآن كاين هريالا هاتو طوبين إنو هالدرارين هدف كاقونا يون نقونين هالكا قدام بيسجال ما أنت حسبي بان أخري أنت تشوس بان أخري أنت تكفكر تفهمت هذا من سبب مهمة إلهي بأوحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون قرآن كاسان كوسود دشي السيادتك أوقف صرته يجونا أيوة فكران وحيابين وكفكرين وحكم إذا صدحات تكوين الإنسان قفك بني آدم كأيهاب كان إلهي وابوري بل هذا 10 بو قرآن كودي جايا ونصوص ده يكبريس هذيك اللفت قال لقولي حيسد قاضو نفط هذا إيك نفط هذا إيك وفي أنفسكم فلا تبصرون إلهي بأوحي الله إن فينا ميدا نركين بل هذا يدي كنت بس سابك أو أبورتين يهابك أو الشقيسان يعافمات كويدسية نعموين كيس بل هذا نفط هذا إيك خبر هذا عافمات كأيه هبك
jidhkaagu u shaqeeya ka warayso taraa cajaa'ib wax badan baad arkayoo la yaab leh takwiinu linsaan weey waxyaabaha aynu ka fikirayna waxaa ka mid ah alkaa'inaat alxaya makhluuqa nool meelaha beeraha markaad tagta iyo bannaanada iyo kaymaha iyo bal hadda u fiirso waxa meeshaa makhluuq maraya mid weyn iyo mid yar iyo mid qarsoon iyo mid maruun soo baxa halkan aad ka arkaysaa diinkii iyo afriyaadilaydii iyo xayawaan wada yaacaya marka raxmaadkii roobku doo inta kalena mid geed fuushan iyo mid meel isku aasay ayay u badan yihiin marka waxaad isweydiinaysaa talow miyaanu haraad u dhimanayn miyaanu gaajo u dhimanayn talow siduu u noolaa talow yaa ogeysiiyey inuu madarku soo dhow yahay wax ajaa'ib وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إلهي بأوحي الله بالحيوان كدولك قود كيس السعونة يا ساقين إلهي هين انت صورنا من إلهي اللي يسبيق قرين التفكر في حال الدنيا وحياة قلبي قينون ولينا يا عشر هذا إن قام قوم حكام إذا بهشنا الدنيا ذا إنه كل حنا الله حبسي قام وين إنه دحور ورقينه حالتي سين إنه كفكرنا يدتك قاركون مرة دكتين أيوة عشان إلهينا اتصال ونقصنا يوحي لا يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آيات سورة الحديد قصة كان تفسير كذا سفي عنه لقوا أو نرمي مركا حالة الدنيا إن أكتو أو أسبربر أكتو إذا إيه آخره وحلبوا الشيء أو أحواش هذا أدو أكتو علم الفكر جاي كميت هي العبادة الصامت وحكم ذو اللحاد أن نتفكر في أحوال الأمم السابقة وما ذي هري أحواش هذا أنتو قرآنكم كورما قرآنك تقريبا صدح ميراضو ميل وحكو دوبا كورما تاريخنا oo de 2000 siyaada aayadooda ilaahay baa wuxuu leeyahay falam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aaqibatu alladhina min qablihim dammara Allahu alayhim walil kafirin amthalaha maxay u eegi waay taariikhda ummadaha hore ilaahay uu halaago u baabi gaal oo dhanna taasanu hayaada ilaahay marka waxaano duruus iyo waxaano casharaa quraanka iyo nusuusta ay barayaan hadaynu ka dulboodno oo salaado degdeg ah aynu dul marna iyo soom qaraxa oo waxaan oo dhan ka maqan yahay de cibaadadii masubkana dufana male idan marka dadaalka dheer baa la inooga baahan yahay duruusta ay naga maqan inaynu aad u barano oo aynu faa'iideysano si cibaadadaasi macaan ay u yeelan karto nafteenana hadeynaan been u sheegayno waa garan karnaa maalinba xaaladaadu waxa ay ku sugan tahay ilaahay khayrka ayna waafajiyo cibaadooyinkana Allah inaga aqbalo amalkana Allah inoo suubiyo اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة